inta badan waxaad hadda ku soo dartay cusbada inta badan waxa la sheegaa biyahan oo biyaha ceelka ah inay cusbo badan ku jirto oo marka loo fiiriyo biyaha webiga maxaad uga hortagtiin oo uga yareeyeen inay cusbadaas ay dhirta ay dib u geyso cusbada biyaha la socoto mid ceelasha waa ay ku kala duwan yihiin waxa jirta ceelasha hadii gaaban yihiin ceel kasta ceelku ka gaaban yahay waa ka cusbo badan yahay dhulkan waa ku kala duwan dhul ceel gaaban cusbo leen waa jira laakiin sida badan dhulka ceelku haduu gaaban yahay cusbada waa laga maarmaan marka ceelka markasta uu dheer yahay oo dhulka u jiro 100 iyo wax ka badan 80 mitir wax ka badan 100 wax ka badan 120 130 mitir sida badan cusbadiisu waa yaraataa hanaanka cusbada oo annaga aan u hortagno waxa kamid ah marka hore qaab organic marka hore u hortagnaa waxaan isticmaalnaa animal manure isticmaalnaa sida geela ariga iyo lo'da geela oo kaleeto hada manure-kiisa waa wadanka isticmaalkiisa uu ku cusub yahay waxaana sababay geel la xareynayo ayaa hadda wadanka kusoo kordhay oo qaab oo intensive qualification geel loo sameynayo inta la xareeyo intensive farming geel dhul aad u kooban dhul maaragtay lagu xareynayo runtii waxa la oran karaa xareeskaas maaragtay waa ay ka fiicnaan lahayd dhulku in loo ballaariyo fiicnaan lahayd geela si uu dhul fiican u helo marka geelaas ma dhiirigelinayo geel in meel cariiri lagu xareeyo laakiin waxay sababtay in la helo manure fara badan oo ka soo baxda meelaha geela lagu xanaaneeyo oo ay u bixiyeen caanaha solis ay u bixiyeen meelahaas marka meelahaas kale waxa laga helaa dhowr baawur waaweyn ka soo raran kartaa oo digadaasna waxa weeyaan aad u fiican oo organiga hada u isticmaasho cusbada dhir kasta cusbada pH ka hoos u soo dhigaysa pH ka neutral ka pH ka pH ka aad u sareeyo oo 8 ka badan yahay ilaa 6 ilaa 5 keenay oo ilaa hoos u sii dhigi kartaa marka hadba saa u isticmaasho ay laftigeeda ku xiran tahay waxaan halkan uga jeednaa hadda barbarooni oo dhex fadhino barbaroonigan marka uu ku yaalo beerahan furan oo lagu waraabiyo waraabka caadiga oo traditionalka hore loo isticmaali jiray iyo marka uu halkan ku yaalo farqiga u dhaxeeya maxaa sababay farqiga sida hadda aan soo sheegnay farqiga u dhaxeeya waa in barbaroonigan uu haysto system irrigation iyo systemkaas irrigation ka oo u sahlay in dhirtu space ay hesho oo 50 cm 40 cm hadba inta laga dhigo iyo 60 cm oo isku jiraan labada dhir marka taas waxay sababtay in geedku oo helo area oo ku baxo xididadiisa iyo biyo ku filan oo helo ilaa sanad hadda midaan guranayna meeshan ku yaalay oo beerta marka asaasna ilaa hadda aan bixinay mid kale taa hadda dhignay oo ilaa hadda 6 bil ilaa 7 bil waa ay gaareen sideedina production u wadaan marka waxa la dhigi karaa nankaas dripka oo sahlay in nafaqadana maaragtay loo soo raacay biyaha oo system leeyahay fertigation loo isticmaalo iyo gacan ku haynta oo dadaal dheeri la geliyay inta way sababtay marka productionkiisana waa saa'idaa waqtiga oo maaragtay ilaa 2 sano ilaa 2 sano in ka badan hadii sidaan maaragtay lagu manage gareynayo waa maaragtay waa la guranaa insha Allah